daawadayaal kulanti wacan oo wanaagsan idil ahaantiinba meel kasta iyo si kasta oo aad nala socotaanba waxaanu idin leenahay ku soo dhawaada mar kaleeta barnaamijkeeni martida toddobaadka ESTV oo aad alaabahadahan oo kaleeto uga barataan inaad ka dheehataan telefishinka caalamiga ah ee Soomaalida Itoobiya ESTV. daawadayaal barnaamijkeeni martida toddobaadka ESTV ayaa waxa alaabeyni soo diyaariyay in lana socodsiiya anigoo ah Cabdirasaaq Ibraahim Claas Cabdirasaaq Daaja iyadoo toddobaadkan barnaamijkan martida toddobaadka ESTV uu marti igu yahay Maxamed Cumar Barkhalle oo ku magac dheer Maxamed Gaab. Maxamed ku soo dhawow barnaamijka martida toddobaadka ESTV. runtii aad baan kaaga mahad celinaynaa inaad nagala qayb qaadato barnaamijka martida toddobaadka ESTV. محمدو waxaan guda galeynaa waa barnaamijka martida toddobaadka ESTV runtii aad baan ugu faraxsanahay inaan ku martiqaano barnaamijka martida toddobaadka ESTV adigoo ah Maxamed Gaab. Maxamed Gaabo barnaamijkan martida toddobaadka ESTV waxyaabo fara badan ayaan ku falanqeyn doonaa bal inteena su'aalahaas kala sii gelin bal ma ka xanaaqda ereygan ah Maxamed Gaab horta ma saaxiibka waxaan waa magac gaar aniga aan ku أنا لا بحي ما دام لقيت اللي متقب ومعنا نستيدا وان كم حركة كفر حسنة وقنع حسنة داود يا محمد أيوه وكمد يهاي وحويان أما ويهاي بنك وجوجابن مجال قبر الدهر تحسوا هيبد وإلهي سي إنك استوى ناشر ونسن محمد جاب وسن كحنا قن مجعنا محمد جاب محمدو محمد Gaab aan ku dhihi karaa waan falaya mar hadii aad magaci ka xanaaqeenin oo aad magaciiba aad qaratay bal waxaan jeclaan lahaa Maxamedow in waxa tahay ugu gaaban magaalada Qabri Dahar runtii baldaadaadu inta ay tahay baan jeclaan lahaa in daawadayaasha inaan la wadaagto daadaydu waa ilaa 45 baanahay ilaa 44 hadanahay midkood dad in baan ku noolaa gobolka magaalada Qabri Dahar waana ku dhashay وانا كبر باري وحيرون حاجة تشرمي انت halkan baan كبر باري كنا كوري مركز داديج waa 45 waa tahay Maxamedow ma jiraan ama ma jirtaa in gaabnadu wax dhibaato ah oo gaar ah oo ay ku geysato gaabnadu wax dhibaato oo ay geysata ma jirto waxaan ku qanacsanahay waan aaminsanahay Ilaahay baa dadka إلهي وكل ديري فرهنا مركا بعدها وإلهي فرين وين أكو سمرة وانو عفرقات وأكو قناع سناي واحد لباتا ويجي سامتشرو أي واحد سامتشرو ما دام إن الإسلام أنا هاي إن الإسلام وأم سنبان هاي كويس درام باشرة كبير كوسعودة شرة كو أفرت الدين بان لبدا الدين بان لاين باشرة مركا إن الإسلام أنا وأكو قناع سناي واحد dhibaato oo igu haysa ma jirto marka nin aaminsan baanahay maadaama oosan dad badan oo lugala indhala ay jiraan waan ku qanacsanay gaabnadeeda iyo italkayga waan ku qanacsanay alxamdulilah aad baan ugu qanacsanay محمدو waxaad tahay saad sheegtay 45 jir waxaadna tahay ninka ugu gaaban magaalada Qabri Dahar waxaad sheegtay inta badan inaad ku soo qaadatay magaalada Qabri Dahar noloshaada badi bal maxaad uga soo joogtay magaalada Qabri Dahar Maxamedow magaalada Qabri Dahar waxaan ugu joogay waxyaabo badan siiba muddadii aan ka soo aan ku nool raaxagaas oo nimid dalkii dhibaatooyin badan buu wadanka ku hayay asaga oo dadka ceelasha ka fariista xoolaha biyaha u diida asagoo gibir xoog ah gibirka waxa la waa lacag canshuur adag intuu dadka ceelasha ka fariista uu ka qaato ayadoo waxaan soo gaaray magaalada Qabri Dahar ay laba leen kala tahay wadada hoose wixii degtaa ka ah ayna Soomaalidu soo dhaafay dadka magaalada u dhashay ayna soo dhaafay wixii ka tan xaggan iyo ayaga xiriyooda
ayagu degan yihiin dhibaato badan asagoo nagu hayo oo gobolku hadduu dhaco ana isu gudbin oo dadka dhibaato badan ku hayo asagoo oo gabdhaha iyo dadka caanaha keena ay furtaan dhabyuga intay istaagaan dhibaatooyin badan buu nagu hayay ku hayay oo wadanka uu ku hayay dalka iyo dadkaba geela uu xarayn jiray looda uu xarayn jiray dhibaatooyin adag buu dharkii wadanka ku hayay waxaa jirtay magaalada Qabsaare waxaa jirtay hal nin oo awraaja ayaa ka mushaar qaadan jiray hal nin oo awraaja ayaa ka mushaar qaadan jiray waxa mushaarka qaatay lacag qaatay isla dhargiga buu ahaa qof Soomaali ah aan Soomaalnimo u dhashay ajnabi u dhashay wadanka lacag kama qaadan jiray odayaal baa jir gadaas odayaashaas kolku danaha uu ka rabo danaha uu ku adeegto ka rabo kiish sonkora uu isku siin jiray labadii qofba marka dhibaatooyin adag buu wadanka ku hayay yaan uga soo joogay asagoo oon magaalada Qabsaare aynan hal nin oo awraaja oo lacag ka qaatay mooyee mushaarkiisuna uu yaraa mooyee oosan cid kale lacag ka qaadin waa soo gaadhay ayadoo waxaan soo gaadhay dadkii Soomaalida Itoobiya oo ay laysay Soomaaliya ay soo gashay oo laysay oo la dhaho meel la dhaho Bambalaayo ay ku laysay u gurman waayay wuxuu jidi waxa igama gelin aniga dadkaas dadkii gobolka u dhashay waa lagu baabi'iyay waa lagu laayay dhargigaana sabab u ahaa danihiisa unbuu waxaysan jiray mooyee wax uu wadanka u qaban jiray oo uu waxaan jiray ma jiro guriga gobolka eega Qabsaare magaalada ku yaala aragtay iyo guriga Adraashka iskaa baa lagu dhisay dadka dadweynaha shaqada iskaa ku dhisay gurigu dhisadaayo wadanka uu baabi'inayay asagoo waxaanu soo gaarnay uusan intii adiga laga qaado oo lagu dhiso lacagtiisana asaga uu dhargigu jeebadaha gashan jiray oo uu danaha dadka iyo dalka asaga tiisa u hormarin jiray yaa soo gaaray hadda alxamdulillah rabbil caalamiin xornimo adag baanu haysanaa wax la isku soo wax la tiin ninkii soo gaaray ninkii ogaaba haddii la xusuusiyo dadka uu qaraacan anigu aad baan u qaraacaa markaan dhargii iyo waxyaabihiisa xusuusto dhibaatooyinka wadanka ku hayay ama aan ka soo gaaray ama la iga sii sheekeeyey waan qaraacmaa wax la isu geyn karaan ma oo waa maalin madow wey markaas dhibaatooyinka dhargii wadanka ku hayay sababtoo tahay gurigaaga intii aayar neefka arigeed ama geela intaad intii laga qaado lagaa xoogo iyo aayar asagoo cabi jiray sawaga asagaa cabi jiray looda xoolaha asagaa qalin jiray wax la dhihi kara dhargii iyo wax la maqli karaa aniga kulley ninkii waanu qaraacaa markaan maqlo ama aan soo xusuusto dhibaatooyin adag buu wadanka kaga tegay raad xun buu ku reebay sida Hayle Salaase waxyaabay sida milig waxa laba isku mid ma aha Itoobiya dadan eega iyo Itoobiyadii hore waxa la isu barbar dhigi kara ama la maqli kara ma jiro aan waxa taga waxaan nacbahay dadka sheekeeya ee dhaha Hayle Salaase kana odayaal waxaa jira fadhi ku diro Hayle Salaase xilligii Hayle Salaase dhaha waa nacbahay waana jirkana waan kula dagaalama codka maadaama aanu gacan u qaadi karin afkan kala dagaalama waa nacba waa tahay Maxamed Gaabo waxaad ka dhawaajisay inaad dhargii aad waxyaabo fara badan aad uga soo joogtay marka maadaama tahay adigu nin gaaban dhargigiina aad u soo joogtay ma jiraan dhibaato adiga ay kugu hayeen oo markaas ay kugu bidhaansanayeen xagga gaabnida dhargigu markaas ciidamadii dhargiga jiray wuu jirtay
waxaa jirtay dhibaatooyinka anigu waxaan iskool baan ka galay iskoolkii waxaa dhici kartay inaan ka baran waayo in intii la ii yimaadaan ay igu ruwaadeystaan markaan xanaaqana inay igu xanaaqaan ya aduu nin cabidsan baan u dhahaa cabsina way igu jirtaa ya cabsi aan waxaa ku qaban karina way ahayd ya dhibaatooyin badan bay u hayeen kolkii kiin adeerka ama ka walaalkay gabadha garab socota ay dilaan anigina aan waxba qaban karin waa waxay ugu hayaan sababta tahay kabtan sigaboorri baa jira xoolaha lagu miisaamo waxaa jirta dad ganacsado xoolahoodii ay intay soo kaxaysteen ay gawaari saarteen oo qalqasheen hadii wixii dhibaato dadka lagu sameeyo anigana waa lagu sameeyay dhibaatana way u sameeyeen aad baan ka murugoon jiray aad ninaan waxna qaban karin dhibaatadaasuna haysato ayaa jirtay ayaan ahaa marka xataa waxaa jira wiil aan walaalanahay oy dileen baa jira uu dharkigu dilay oo rag baan walaalanaa ama walaalanaa oy dileen baa jira waxna qaban karin aan qaban waayo marka dhibaato ti u xumayd buu waayey waxaan dhahaa guriga baan ku dhex ooyi jiray iyo meelaha baan ku ooyi jiray markuu u dhahana dee aamusi jiray marka dhibaato badan buu waayey dargigu dhibaatadaasuna aad bay u fara badnayd wuu diri jiray dadka wuu miiran jiray wuu gabdhaha wuu kufsan jiray marka waxaas dargigaas waxaas wuxuus waa waxaas waa tahay maxamed gaabo runtii waxaa tahay ninka ugu gaaban magaalada Qabridahar ee xarunta ismaamulka gobolka Qoraxay walow la dhihi kara xagga dawladda deegaanka Soomaalida iyo Itoobiya hadii la eego in la heli karayo qofkaasi gaaban bal xagga dharka maxamed hadaan eegno ama jaamaha ama dharka aad xiranayso ma jiraan dhibaatooyin aad iyaga kala kulanto oo markaasi hadii aysan jirin saad ula tacaashaa dharka aad xiranayso iyo jaamahada maadaama la heli aan jirin de warshad dhar adiga kula eg markaas iyaga soo saari kartaba xagga dharka waxa dhibaato aan kala kulmo ma jiro kabaha waan xidhaa kabaha sandarka xidhaa 38 ilaa 38 lambarkooda xidhaa dhar kale tan shaatiga waan xidhaa dharka aan xidho wax aan ka qabo cilad ka qabo ma jiro dharku waa ilige hadana anay ka shaati weyn adiga shaatiga kaya ka weyn ya waa xagga balarka ya xagga targama ku qaadan kartaan ma xagga ana waxaan ka qaadan xagga balarka ana ka shaati weyn adiga wiilka yar kala marka xaggaas wax cilad ah oo yimaada ma jiro sarwaal ma xidho maadaama nin weyn iska culmaanahay maxawustiida baan iska qabtaa dharkaygu waa noocaas sarwaal ma xidho waa tahay maxamed gaabo haddaan su-aalahayga hore aan dib ugu laabto waxaad ka dhawaajisay waqtigii dhergiga waa tahay maxamed gaabo haddii aan dib ugu laabto su-aalahayga waxaad ka dhawaajisay bay ahayd mar dhow in markii ay jirtay dawladda dhergiga markii aad ku soo gaadhay markaasi ay jireen dhibaatooyin aad kala kulantay oo ah dhinaca gaabnida walow amaba macnaha takoor ka dhigaan ama ay waxay doonaa ka dhigaan ma jirtaa hawlihii noocaas ay dhergiga jiray in hadda waxyaabahaas oo kale lagu la kaco intii ay nidaamkan cusub ee federalismka oo yimid dawladana cusub isla markaasna ay dhalatay xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida iyo Itoobiya ee haatan xukunka haysa ma jirto lama la dhihi karo waxaas ma jirto dawladda deegaanka iyo dawladda cusub ee Itoobiya ifcal ma jirto meel alla meeshan doona wadanka aada jijiga waan tagay dirdhaw waan tagay meel aan tagin oo lacagta marmar meel aan laga soo dhaweynin ma jirto meel aan laga gacan qaban ma jirto ma jirto mana dhacayso dawladda deegaanka
ودولتي ودولتي أن إلهي عدوكي قعنت أتكا دركي دولتي نو قعنت ناقبتي وي لما دهي كرو دركي يا دولتي لسكما سوا قمان كرو مركا دولتي ديغانكا ميل كستا وان مرا ميل كستا وان تغا الحمد لله رب العالمين إلهينا وحن كبرنا إنه إلهي نوصي أتكي موي دولتنا ذا waa tahay maxamed gaabow waxaa tahay runtii nin aada u gaaban waxaa jirta waqtiyada qaar markaad doonayso meel dheer oo kale in aad laacdo waxa weeyaan in aadan laaci karin waxyaabo fara badan oo waxa weeyaan dadka dhaadheer aynan maxaan ku dhahayaa ay qabsan karayaan oo aadan adu markaas iyada aadan soo qaadi karayninba howlaha noocaas sidoo ula tacaashaa maxamed gaabow saaxiib meechi dheer in gaari karin kama yaxo mid caawimid saaxiibkii ama qof kale oo ila socda ayaan dhahaa ii qabto hawshaas ii soo qabo waan dadkuna waa dad aan iswada jecelahay aadna ii gacan qabto weeye iga waxaa jirta saacadan aan taaganahay baabuurkii ag marayo ilaa uu meesha uu geeyo meesha aan rabay igama tagaan dadkanaga iyo kalsooni ayaan ka qabaa iyo wadanka kamana yaxyo meesha aan gaari karin ama wiil ama gabadh inan yaa hawsheeda qabta marka dad waan ku qanacsanahay waxa aan qaban karinna waa la ii qabtaa marka alxamdulillah kamana yaxyo xukuumaduna caawin badan baa i siisaa sababta oo tahay xukuumaddu aad bay gacan qabatay siiba madaxweynaha dowladdeegaanka Soomaalida Cabdi Maxamuud Cumar gacan qabasho aad u weyn buu qabtaa asaga ayaan ku tiirsanaa ilaa saacadan gaari wuu ii gaday guri wuu i siiyey caafimaadkayga uu gacan qabtaa oo mar alla markuu yimaado dhakhtar ama uu geeya ama lacagteeda uu siiya waana ku qanacsanahay dowladda xukuumaduna aad bay ii gacan qabataa nin xukuumadda way iga taageeraan way gacan qabtaan xukuumadduna aad baan ugu mahadnaqaya marka waxa laga yaabaa marka iyada waxyaabaha aad jeceshahay maxaan ku dhahay in aanan garanin ama haday tahay dhinaca cuntada dhinaca waxa weeyaan cabitaanka dhinac kastaba marka ma jiraan waxa weeyaan dhinaca cuntada iyo dhinaca cabitaanka noocyo aad u xisayso aniga iyo bulshadaba aad nagala qayb qaadanayso si markaas qofka doonaya inuu ku macsuumo oo maxaan ku dhahay ugu si talagalaba maxamed gaabow saaxiib wixii aad ugu martay qaada aad iska u soo way anagana kalsoonideeda qaadan oo way qancin hadii maayo waxaasan aan rabaa laakiin wixii aad igu martay qaaday waa waxaan jirkayga iyo dadka iyo qancinayaan weeye waxaan qancinaynin ugu saxeen meesid marka waan ku qanacsanaanay waanan u hoggaansanaan may saaxiib wax aan si xiiseeyo ma jiro haddii aan xiiseeyo waa wax un jirkaygu ogol yahay siiba iga waxa maadaama oo waxa cusbada aan lahayn waxa cusbada leh aan nacbahay waxa kale oo qanacsan haddii soo cusba lahayn wax kale oo qanacnaya waa jirkaygu waa jecel yahay wax kale bas waan ku qanacsanahay waa tahay maxamed gaabo su'aasha hadda aan jeclahay inaan ku weydiiyo ayaa waxay tahay runtii waxyaabo fara badan ayaa deegaanka uga soo joogtay gaar ahaan magaalada Qabri Dahar
marka bal waxaan jeclaan lahaa aniga daawadayaasha inaad nala wadaagto haddii ay jiraan waxa weeyaan intii aad meel soo martay intii aad wax soo martay waxyaabihii ugu la yaabka badnaa ee aad la yaabtay aad istiraahday wallaahi waxani waa waxa weeyaan aan ku dari karo dhacdooyinkaaga ugu yaabka badan oo markaas iyada ah jira ama wixii ku farxad gariiba wixii kula farxad badnaa ee aad iyadana aad aragto ayaan jeclaan lahaa aniga daawadayaasha inaad nala wadaagto waxaa ugu yaab badnaa dhibaatooyinkii uu dhargigu sameynayay ayaa ila yaab badnayd sababta oo tahay waxaa jirtay maalin waqaaxi aan ka cabaynay aan joognay ayaa nin soo caydhsaday ninbaa nin soo caydhiyey wuxuu u soo caydiyey qabalayga wuxuu shir baa laga leeyahay shirka leeyahay ninka waa ninka magaalada nin caalim oo magaalada qabtari waa adeerkaya wuxuu qabalayga shirka orod aad maxaa shir aadaa masaajid u socdaa ayaa wadaadkii ul low kaga dhuftay sababteeda uga dhufanaysaa waa shirkii buu diiday oo shirku muxuu yahay wadaadka masaajidka u socda wuxuu ku dilay mushirka aado xilli waxaa jirta dukaamada intii la xidho ruuxu hadduu shirka imaan waayo lacag uusan haynin maanta uusan maalkaa shaqaysan lagu ganaaxi jiray oo loo ganaaxi taas aana ilaya badan wadaadkii adeerkay waa lowga korkiisa yuu budh kaga dhuftay marka hadda ciil tabar ana wax ku qaban weynay ayaan wadaadkii ninkii codasa ay ugu dhacday maalinkaas ay la yaabadnayd ina naxdin badnayd maadaama ninkii wadaadka masaajidka u socday uu dhargigu jiri shirka maatimaadid qabalayga maatimaadid oo wadaadkii halkaa uu laxaadkiisii in badan ka dhutin jiray ayaa jirtay maalinkaas ay la yaabadnayd ina naxdin badan farxadaas dhargi maba lahaynba dhargi ma lahayn laakiin farxad waxaa ay leh dowlad deegaanka soomaalida farxadda dowlad deegaanka soomaalida horumarka jaamacadaha eega markaan arko guriga halka kama dhisnaan jirin magaaladana eega gobolka qabritaan eega waad aragtay inta ku darmatay iyo inta uu ahaan jirtay ya waana intii dowlad deegaanka soomaalida Ethiopia la dhisay ay dhalatay wey yaa farxad aan la soo koobi karin airportkii meel kasta limaadkii horumarkii waar kasta waxa ka dhacay eega noloshanadu waxa weeyaan awra waxaan ku saaqsanaan jiray nabadgelyo meel baanu saaray waa la gaadhay biyihii meel baa la saaray eega dhulkii baa loo soo jeedsaday farxad waxaa iyaa dhulkanagii oon beerin oo dhulkii la beerayo oo la horumar ka socda ayaa farxad iyo horumar iyo yaa eegan ugu farx badna eega waxaan dhahay ilaahay yaa ku kaaga soo bilaaba daadaada caafaankaagii horeeto yaa kuu soo celiyaan dhaha maanta nasiibaad waxaa le ninka asagoo ayni yar ah lahana qaaday dowlad deegaanka ninkaasaa ugu nasiib badan maanta anigu waan ka cimri yaa ilaahay daadana kuu yareeya caafaadna ilaayaa ku siiyo baan dhahay yaa aad baan u faraxsanahay waana ku qanacsanahay dowlad deegaankanaga iyo horumarka ay higsanayso iyo aad laakiin wixii dhargiga kaas isagu naxdin mooyo farxid ma lahayn waxaan ku sisaqaynaa waa guntiga gabagabadii barnaamijkeena martada toddobaadka iyo STV ma jiraan wax fariin ah ama cod halkan aad ka salaamayso oo aad markaas iyadaha uga faa'iideysanayso fursadan qaaliga ah ee ay ku siisay telefishinka caalamiga ah ee Soomaalida Itoobiya iyo STV way jiraan dadaan salaamayo oo aad u jiraan dadka muuqaalka iyo maqalka yaqaanay maxamed ka beenanay dhammaan dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya dhammaan waan salaamayaa waan u dirayaa salaantaas oo salaantaas kalka iyo laabta ka soo goday waa dadka maqalka iyo badhaanteeda iyo maqalka yaqaana aad baan u salaamaya daawadayaal intaasi waxaa inoogu dhan waa barnaamijkeennii martada toddobaadka ESTV oo aad alaabahadahan oo kaleete uga barateen inaad ka dheehataan telefishinka caalamiga ah ee Soomaalida Itoobiya ESTV
daawadayaal barnaamijkeenan martida toddobaadkii STV ayaa waxaa inii soo diyaariyey inalana socodsiinayay anigoo ah Cabdirasaaq Ibraahim Claas Cabdirasaaq Daaja dhinaca kaamirada waxaa runtii aad iga caawiyey markastana iga caawiya waa saaxiibkay Maxamed Shucayb dhinaca habeentana aalaaba waa Ibraahim Cabdi Muuse daawadayaal waxaan isagana halkan aad aan uga mahad celinayaa inta aanan barnaamijka ka bixin waa saaxiibkay Maxamed Gaab oo runtii waxa weeyaan saaka aroortii salaadii subax waxa weeyaan noo kacayso oo nogala qayb qaato barnaamijka martida toddobaadka STV Maxamed Gaab aad baan kaaga mahad celinaya fursadda qaaliga ah ee noo soo hortay si aad nogala qayb qaadato barnaamijka martida toddobaadka STV daawadayaal intaas waxa inoogu dhan waa barnaamijkeeni martida toddobaadka STV barnaamijkan oo kale intaan toddobaadka dambe ku kulmi doono hadduu Allah awoodo la ogolaado idinka u diyaar garoobaya qaybaha kale oo telefishinku idinku talagalay waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi tacaala wa barakaatuhu